waxay kula tahay inuu yahay waxa ka hor istaagaya heerka koowaad ee noloshaada. Ma aha lacag la'aan, ma aha waqti la'aan, amba in waqtigu kugu yar yahay. Sidoo kale ma noqon karto dadka ku neceb, balse waxa weeyaan codka yar ee madaxaaga ku jira misana ku leh ma samayn kartid, ma awoodid, waxyaabahan oo kale ma qaban kartid. laakiin weli ma isweydiisay bal ka waran haddii codkaasi uu been kuu sheegayo? Bal ka waran haddii awooddaadu ay bilaabmato amba aad energy hesho marka aad isku daydo inaad hawsha dhamayso. Dad badan ayaa waxay ka quustaan hawlaha ay qabanayaan iyagoo weli haysta awood badan oo ay wax ku qaban karaan. Guulaystayaashuna marnaba maaha kuwa aan daalin. Soo dhawo saaxiib, casharkii koowaad ee aan kaga hadli doono markaasi buugga loo yaqaano Can't Hurt Me. qodobkan ayaa saaxiib waxaan kaga hadli doonaa sababta ay maskaxdaadu kuu joojiso inta uusan marnaba jidkaagu daalin. Magacaygu waa Mr. Heybe. haddaba saaxiib haddaad nagu cusubtahay nagu soo biir, haddii aad hore noola joogtayna muuqaalka like noo saar. waxaana rajeynaya haddii aad nagu soo biirto inaad barteennan xogo badan ka faa'iidi doonto. marka ay wax kugu adkaadaan, maskaxdu waxay isku daysaa inay ku kaantaroosho, soo kalena ay ku dhahdo shaygan wuu adag yahay ama ma samayn karaysid. laakiin marar badan ma aha inaad gaadho xadkaaga dhabta ah. waxaad soo ogaataa keliya inaad gaadhay halka ay raaxadu ku dhammaato ama maskaxdaada ay ku dareemayso inay raaxaysanaysay ama markaasi ay ahayd mid ku faraxsan. sidoo kale korriinka iyo guusha iyo inaad shaygaasi aad sida saxda u dhammayso waxa ay bilaabmataa marka aad isku daydo inaad ka gudubto xadka ay maskaxdaada ku raaxaysanayso shayga. alqiyaas 2 arday oo galaya imtixaan aad u adag. mid ka mid ah wuxuu bilaabay inuu isku dayo inuu xalliyo oo markaasi qaybo casharada u yaala, balse waxa uu dareemay inay aad u adag tahay oo uusan samayn karahayn midani. wuxuuna joojiyey oo bartaasi uu kaga hadhay wixii uu akhrinayo oo dhan. halka ninkii kale ee la midka ahaa uu idhi 1 saac oo dambe ayaan sii akhrin doonaa. waxa uu heli doonaa muddo 1 saac kadib marka uu sii akhriyo natiijo ka wacan tii uu markii hore filayay. ama waxaan dhihi karnaa waxa uu helayaa natiijo ka wacan tii uu waayey ninkii iska joojiyey inuu sii wado casharka. waxaynu halkaa ka ogaanaynaa labadaas qof farqiga u dhexeeya inuusan ahayn keliya ataa inay ahaayeen dad markaasi isku hawl qabanayay, balse ay yihiin dad ay isdhaafisay adkaysi. wax kasta oo markaasi aad u baahan tahay inaad bilowdo waxa ay ku xidhan tahay ilaa intaad adigu u adkaysan karto. haddaba hadday maskaxdaada ku tiraahdo shaygan ma awoodid oo ma qaban kartid, waa inaad isweydiisaa runtii shaygan maan awoodaa mise waxaa jira daal. dad badan ayaa midaasi ku sirma, waayo maskaxdu mar kasta oo ay dareento culays ka badan ama shay aysan raaxa ku dareemahayn waxay isku daysaa inay ku joojiso misena ay ku dhahdo shaygan ma qaban karayo, oo waxay doonaysaa shay diboomiinka maskaxda kor u qaadaya si ay u hesho farxad ka badan tan hadda ay ku dareemayso shaygan. haddaba saaxiib, haddii aad cashar ka baranayso muuqaalkan waa inuu noqdaa midkan. maskaxdu intaad adigu u malaynayso in ka badan ayay awooddaa. waxaan jeclaan lahaa saaxiib inaad nala wadaagto goortii aad naftaada ku qasabtay shay ay ku tiri ma awoodo ama ma qaban karo, misena aad aragtay adigoo shaygii qabtay amba ku guulaystay. waxaan rajeynayaa saaxiib inaad muuqaalkan wax badan ka faa'iiday.